الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخير خلق الله تبارك وتعالى، وعلى الصحابة غر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم. إلهي سبحانه وتعالى وحين ويدي سنينا مجلس كان قيمها بدن إنه ربك حصينه إنه قدام بدافو. إلهي هينو قدام بدافو maalinta la qatan yahay la qaawan yahay kuwii ku farxa Allah inaga dhigo. In badan baad fadhideen, waxaanad fadhideen meel la fadhiisto meesha ugu qiimaha badan leh oo guryaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala guri kamida ayaad fadhideen. Marka aynu hadhow kala tagayno, bishaara aynu sugaynaa in Ilaahay noo dambi dhaafayo dadka majliska isugu yimid, Ilaahay kuwaana haynagu daro. walaalayaal, sheekh Ismaaciil Ilaahay ha barakeeyo wuxuu idinkaga hadlay gabadha muslimada iyo dowrka ay ku leedahay diintan Ilaahay fidinteeda iyo dacwada ka shaqaynteeda. waxaan idinku darayaa ikhwaani fillah, qofku hadduu daaci noqon waayo isaga lagu noqonayaa. gabar yahay adigu haddii diinta Ilaahay aad ka shaqayn weydo oo dadka ugu yeedhi weydo raaxada aad haysato iyo xasiloonida aad dareemayso, adigaa lagu yeedhi doonaa, adigaa baadida lagugu yeedhi. mowduuca aan ka warramayo iyo mowduuca sheekhu uu ka warramayna cilaaqo ayaa u dhaxaysa. waxaad ogtihiin qofku markuu daaci noqonayo waxaa laga rabaa waxyaabo badan si ay dacwadiisu u midho keento. waxa ugu horeeya waxaa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam uu ku suntanaa oo raxmad iyo naxariis. cidaad u yeedhayso inay kaa dareento inaad u naxariisanayso. walidaalika ba Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu yidhi, wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. nebi muxamedow sallallahu alayhi wasallam waxaanu kuu soo dirnay oo keliya inaad u tahay uunka oo dhan naxariis. bal nabigaaba sidaa caddeeyey sallallahu alayhi wasallam oo wuxuu yidhi, ayuha nnaas innamaa ana raxmatun muhdaa. dad yahow waxaan ahay buu yidhi naxariis ilaahay soo hadiyeeyey sallallahu alayhi waalihi wasallam. qofka daaciga, gabadha daaciyadda waxaa laga rabaa markay dadka diinta ugu yeedhayso ama ay diinta barayso ama ay diinta u sheegayso inay naxariistu ka muuqato sidii nabigeenu ahaa sallallahu alayhi wasallam. wamaa arsalnaaka ay ayuha arasuulu maa arsalnaaka bihada addiin alxaniif wahuwa diinu lislaam. diintan wanaagsan kuulamaanaan soo dirin ilaa min ajli an takuuna raxmatan lilcaalamiin, inaad uunka oo dhan naxariis u ahaata mooyaane. jinka iyo insiga, xayawaanka, makhluuqaadku Allah abuuray oo dhan nabigeenna muxamedihi sallallahu alayhi wasallam naxariis buu u ahaa. waxaana ina tusinaysa mawaaqiftiisii iyo dhaqanadiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam. asxaabtiisa naxariis buu u ahaa, haweenkiisa naxariis buu u ahaa, cadowgiisa naxariis buu ahaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam. xayawaanka naxariis buu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam. naxariistaasuu ku suntanaa. walidaalik baa Allah subxaanahu wa ta'ala markuu sifeynaya rasuulka wuxuu yidhi, fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum. naxariis sababteed xagga ilaahay ka ahaatay oo rabbi subxaanahu wa ta'ala qalbigaaga ku abuuray ayaad ugu dabacsanaatay asxaabtaada. walow kunta faddan غليظ القلب لانفضوا من حولك. haddii aad ahaan lahayd mid qallafsan oo qalbigiisu engegsan yahay, dadkan hadda kugu xeeran ee kugu soo dhow ee naftooda kuu bixinayay
ويكاك لياعي لها ينبى رسولك اللي عليه الصلاة والسلام وحد وقتهن نبينا عليه الصلاة والسلام أصحاب تصدوها وادكودا دركسنتهن سيدا يكو أهايين وادكودا دركسنتهنو رسولك صلى الله عليه وسلم دقال كي أحد مركي أي مسلمين تو أمركي نبي الديدين صلى الله عليه وسلم وحوغا هزيمة يجبكو كل عي مسلمين تي dad fara badan baa nabiga u noqday gaashaan ay warmaha iyo seefaha iyo leebabkaba ay isaga dhigaan rasuulka kaleey salaatu wasalaam arintaasina waxay ka turjumaysay jacayl ay nabiga jeclaayeen jacaylkana waxa keenay naxariistii uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu asxaabta tusay ee uu kula dhaqmay sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikhwani fillah wuxuu la yimid nabigu calayhi salaatu wasalaam naxariis dhammaystiran wuxuu la yimid diin ay ku badbaadayaan adduuniya aakhiraba wuxuu leeyahay saaxibu lkashaaf liannahu jaa'a bimaa yusciduhum in ittabacuu wuxuu la yimid wixii liibaansiinaya haddii ay raacaan waman khaalafa walam yattabic fainamaa utiya min cindi nafsihi qofka rasuulkaa khilaafeen raacinna naftiisa unbaa looga yimid isaga unbaa kaasi iskhasariyay ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum wa ahliihim yowma alqiyaamah kuwaasi waa kuwii naftoodii khasaaray ayuu allah yidhi subxaanahu wa tacaala sidaa daraaddeed walaalayaal waxa aynu waxoogaa isyar tusaynaa qaabkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ugu naxariisanayey kow asxaabtiisa labo haweenkiisa saddex cadowgiisa siduu ugu naxariisanayay ayaynu arkaynaa waxaad ogtihiin maxabada raxmadda iyo naxariista nebigu calayhi salaatu wasalaam may ahayn oo keliya mid asxaabtiisa ku kooban balse waxay ahayd mid gaadhay dhammaan cadowgiisa iyo nasteexiisaba ninbaa iyadoo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisuba ay masaajidkii fadhiyaan ayaa nin reebaadiye ah intuu sare kacay ayuu qayb masaajidkii kamida ku kaadshay badda u fiirsada raxmaddiisu halkay gaadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii intuu ka yar kacay majliskii ayuunbuu meel kamida masaajidka oo aan ka dheeraynba uu ku kaadshay waxaa ku qayliyey markiiba asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyaga oo kor ugu dhawaaqaya codka oo kule war ka daadahaya rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wardaaya kaadida ha ku jarina ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadda ninkaasi wuxuu ku kaadsaya waa masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam haddana naxariistiisii waxay keentay inuu u diido asxaabta inay hadalka ku adkeeyaan waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo diray inuu dadka ilaahay jeclaysiiyo oo uu diinta jeclaysiiyo oo ay arkaan naxariis burqanaysa kadibna ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay caabudaan oo ilaahay jalla jalaaluhu u dhowaadaan ninkii markuu iska dhammaystay ayuu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam meeshiisiina wuxuu amray in waadaan biyo lagu shubo si ay u daahirto ina masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ma gogolanayn camuud buu iska ahaa rasuulku waa u yeedhay wuxuuna ku yidhi masaajidan waxaa loogu talagalay in ilaahay lagu xuso salaadana lagu tukado qur'aankana lagu akhriyo qaaduraadka iyo kaadi looguma talagelin ninkii wuu yaabay wuxuu arkay mucallim ay naxariistu ka burqanayso bal waxaa la sheegaa inuu intuu duceeyey uu yidhi ilaahow aniga iyo nebi muxamed oo keliya allahuma salli calaa muxamed ilaahow noo naxariiso ilaahow noo naxariiso ilaa markii dambe uu rasuulku ku yidhi naxariistii ballaadhnayd ayaad soo koobaysaa iyo ka daaba rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalayaal haadihi hiya raxmatuhu sala allahu calayh wasalam taasi waa naxariistiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu habeen iyo dhalaarba rasuulku ku fikirayay ummaddani inay badbaado ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu rabbigii ku yidhi falacallaka baaqicun nafsaka calaa aahaarihim waxaa laga yaabaa inaad naftaadaba ku halaagto kuwan raadkooga sida aad isugu hawlaysa inay ilaahay rumeeyaan subxaanahu wa tacaala bal rabbigeen subxaanahu wa tacaala wuxuu ina xasuusiyey
إنه سجارة ومؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه الله. سورة التوبة آخر كيغا مركو رسول كيس أماني إلهي سبحانه وتعالى وحيري لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حقيقة أهان ضد يهو وحائدي يمدبو إلهي سبحانه وتعالى الرسول أو نفتينا إلهي كصوصاري الله أكبر أو عزيز عليه ما عنتم مشاقذين وحي إذن دبا يابكو عدك رسولك عليه الصلاة والسلام وكدم قنية. ولذلك واحد قرن سابري تولي مركا اللي يسكو يمادو اللي قتين إيه اللي قاوين يهي أنبيادي إلهي مدو البقو عذر دارنا يو رسولك وحو أرنا يا أمتي 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 إله أمت إذا إيبت بادي إله أمت إذا إيبت بادي هذا أنبيادي أردن مدو البقو عذر دارنا يا هذا الكدد كاسمانة توامحي اللهم سلم سلم إله النبت بادي رسولك نوحلي هي أمتي إله أمت إذا إيبت بادي الله أكبر. وحا هدبر دون دريستي قفك النحريستا كقدا أيا دون دريستي. نبي عليه الصلاة والسلام هوانكي سؤول نحريساني إصابة أركا يا رسولك عليه الصلاة والسلام إن هوانك لفتو ده هوانكي سا أي كل عكران وحي دمرك كدعا هديتها هناسة إيا هديتها إني عرضان أو عرضا سناء أي كانتو إني كوكعان أعمال آنوع تمن قريق النبي عليه الصلاة والسلام. بل هذا قصة دقيستا قريق عائشة لفرديا وحانا فرديا النبي عليه الصلاة والسلام إيا أصحابتي سي انتي صاحبتي أهيدا أبو مضنين iyadoo halka la fadhiyo ayaa haweenka nabiga guryahooga way isku dhawaayeen haweenadii Salama ahayd ayaa cunto khaadimkeegii u soo dhiibtay iyadoo oo rabta inay ku caawiso Aisha martida nabiga calayhi salaatu wasalaam in la sooriyeeyo. dumarkana waad iska taqaanaano xaggaasi lagama maro guri kala cunto laga keenay iyo arrimahaasi way ku yar adag tahay. adigu Aisha mar alla markii uu khaadimkii cuntadii la soo galay ayay gacanta kaga dhufatay rasuulkuna meeshuu fadhiyaa sallallahu alayhi wasallam. arintaasi waxay keentay inay xeeradii intay dhulka ku dhacdo ay laba kala noqoto oo meeshii loogu tala galay cuntada in la dhigo in xeeradii intay laba ugu kala dhacday cuntadiina ku daadatay. mowqifkaasi aadka u adag leh ee nabigii sallallahu alayhi wasallam uu joogo maxaad u maleynaysaan inuu sameeyay maanta se ragga waqtigan jooga hadii sida islaantiisuba ay ku sameyn lahayd muxuu sameyn lahaa. waxaan ka warramayaa naxariistii nabigu waa haweenkiisa u naxariisanayay waxa ay tilmaameen ruwaadu nabigu calayhi salaatu wasalaam Aisha mahruufin macaayin وما عرون بل سوحوا جدا قالي عنتدي ماشى كده عطيه حيران نتو يسقصوا قبته إنه ولي بقى عذر داره أو أصحابتي سقوي لهذا غارت أمكم هو يدين باهنا استي بلا ما كود عشان حريصة أوفيرسو هو يدين باهنا استوكو يلي سأن أصحابته لفتو ذبه أنا عائشة وجهضل oo maadaama hooyadood ay tahay hooyana qofkii xishoonay ma hadal qaado hooyadii waxbana kama sheego. Aisha khadimkii meeshuu taagan yahay xeerada keenay nabigu bal u fiirso sallallahu alayhi wasallam sida uu xataa dumarka laftooda u kala ilaalinayo si aanay isugu calool xumaan. khadimkii markiiba ma dirin rasuulku alayhi salaatu wasalaam joog buu yiri Aisha wuxuu ku yiri oo xeeradan de Salama lahayd u soo kafal qaybtii kale waa laga dhaafay laakiin de xoolihii bani aadamku way Salama iskale way soo kafashay xeeradii oo dhameystiran baa khadimkii loo dhiibay. Salama wax warkama hayso waxa dhacay oo dhan waxa soo dhan waa maxay waa naxariistii nabiga calayhi salaatu wasalaam. nin kale maanta haduu noqon lahaa maxaa xoran lahaa ya noocaasaan haynaagu oran lahaa تاسان نقولي كوهينا ده أنتظر كهينا إنا لله وإنا إليه راجعون إمسا عبرية ورجوا كعبرية
imisa kelmad yar oo keliya lagu furay, imisa dumarkooga furiinka ay furayaan ka dhigay biyo la cabayo oo kale. mid baa wuxuu odhanayaa islaantaydii ayaan waxaan ku xidhay, waxaan ku idhi haddii aan jaadka dayn waayo waad furan tahay. bal ka waran, bal maxaa iyada jaad iskala galay? ooridiisii ubadku u haysay ayuu balwadiisa ku xidhay, haddana jaadkiibuu ku noqday. marka hadhow wuxuu rabaa in cudurdaar buu rabaa, uu leeyahay maxaa sameeyaa, sidaasaan idhi jaadkiina waan ku noqdee. hadda islaanteena way ka furatay. marka sidaad islaantaada halkaa u geynaysaa? haddaba walaalayaal, nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaasay naxariistiisu ahayd. bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo dadka ku tusay naxariista ficil, isagoo ku tusay, haddana wuxuu lahaa irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa. waar dadka dhulka dul jooga u naxariista. dadkoo keliya maaha, wixii dhulka alla ku abuuray u naxariista. ilaaha samaawaadka ka sarreeya idin naxariisanaya. bal wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam arraaximuuna yarxamuhum arraxmaan. dadka naxariista allaha raxmaankaa u naxariisanaya. haddaba inaynu dadka u naxariisanno oo naxariistana aynu nafteenna ka bilowno, nafteenna u naxariisanno, diyaar ma tihiin? mustacidaad? ilaahay ay naga aqbala, aamiin dhaha. eega qisadan cajabta badan leh. dagaal baa lagu jiraa. nebiga waxaad og tihiin gaaladii intay isugu habar wacdeen ayaa mid walba wuxuu rabaa inuu dilo, magacna uu ku qaato, yidhaahdo muxamed baan soo dilay, allahuma salli calaa muxamed. iyadoo asxaabtii ay har galeen oo nebiguna geed uu hoos fadhiistay, seeftiisiina geedka uu sudhay, ayaa indhaha uu isku qabtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, isagoo waxoogaa yar hurdoonaya. nimankii haddaba lacagta rabay inay qaataan oo nebiga dilistiisana ay magac ku yeeshaan, mid ka mid ah intuu yimid oo gaal ah ayuu seeftii intuu galka ka saaray ayuu rasuulka ku qabtay sala allahu calayh wasalam. markaasaa wuxuu ku yidhi yaa iga kaa celinaya? nebigu sala allahu calayh wasalam maadaamuu yahay addoon qalbigiisa rabbigii soo dirsaday ku xidhay, oo daqiiqadna aanu rabbigii qalbigiisa ka maqnayn, oo ilaahay in badan xusaya, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala jacaylkiisa iyo maxabbadiisa iyo weynayntiisa qalbigiisa dafay ka tahay, oo mar walba xasuusan ilaahay subxaanahu wa tacaala dardaaranku siiye nebiga. wuxuu allah yidhi fatawakkal cala allah, ilaahay tala saaro, watawakkal cala alxayi aladii laa yamuut, rabbiga nool ee aan dhimanayn tala saara nebi moxamed sala allahu calay wasalam. oo mar walba xasuusan watawakkal cala allahi wakafaa billaahi wakiila. ayaa ninkii markuu ku yidhi nebiga yaa iga kaa celinaya, rasuulku wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam allah baa iga kaa celinaya. ninkii maxaa ku dhacay? ninkii seeftii baa ka dhacday. allah baa iga kaa celinaya markuu yidhi, seeftii uunbaa ka dhacday ninkii. nebiguna seeftii uunbuu qaatay, ninkii uunbuu ku qabtuu ku yidhi adiga yaa iga kaa celinaya imanka? ma gaal baa ilaahay xasuusan? ma gaal baa gaal khamrigii ka buuxo oo zinadii ka buuxdo oo balaayo baas ku jira rabbi siduu u xasuusan boo mushriga? mar alla markuu nebigu seeftii ku qabtay wuxuu yidhi waxaad noqotaa dadka ka ugu wanaagsan noqo oo iska kaydaabu ku yidhi. waryaa iga kaa celinaya? kun khayra annaas buu yidhi, dadka ka ugu fiican noqo. markaasaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam hay haddaba ma islaamaysaa? may buu yidhi ma islaamayo. islaamku qasab maaha. diintan qofku allah subxaanahu wa tacaala uu la doono ayuu ku soo hanuuninayaa. diintuna qasab kumay faafina, waxay ku faaftay akhlaaq iyo naxariis bay ku faaftay. dadka yidhaahda seef bay ku faaftay, bal qisadan ha u fiirsadaan. nebigu isagaa maanta ninkii gacanta ku haya, asxaabtiisii waa wada. qisadii markii la arkay wuu u sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, wuxuu ku leeyahay ninkii waxaad noqotaa dadka ka ugu khayr badan noqo, laakiin ma islaamayo. waxaanse ballan kuugu qaadaya dagaal dambe oo aan kula soo galaya inaanay jirin. nebigu wuu iska daayay calayhi salaatu wasalaam. asxaabtiisii buu u yeedhay, wuri balkaalaya ninkani seeftiisii buu qaatay, yaa iga kaa celinaya buu igu yidhi
allah baan ku idhi markaasay seeftii ka dhacdo waxaan ku idhi yaa iga kaa celin wuxuu igu yidhi waxaad noqotaa dadka ka ugu wanaagsan ogaada ninkaa waan iska daayey waxba yaan loo geysan ninkii wuxuu samayn jiray ma garanaysaan markuu tolkii ku noqday wuxuu odhan jiray waxaan idinka imid dad kii ugu fiicnaaya alla abuuray subxaana wa tacaala laakiin de hanuunka yaa bixiya ninkaasi mu muslimay maya hanuunka yaa bixiya allah baa bixiya subxaanahu wa tacaala ilaahay baa cidduu doono hanuunka siiya waxay qisadaasi inoo tilmaamaysaa naxariistii nebigu sala allahu alay wasalam uu naxariisanayay xataa cadowgiisa maanta nin mansib leh oo ciidan wata oo madax ah haddii nin sidaa uu odhan lahaa ma badbaadi lahaa baad u malaynaysaa waa maya jeelka kama sokeeyeen haddaan la dilinoo markaaba aan lagu dhufan oo aan nafta laga qaadin jeelka kamuu sokeeyeen waxaad ogtihiin walaalayaal nebigeena moxamed calayhi asalaatu wassalaam naxariistaasi wuxuu doonay inay wada gaadho cid kasta xataa waxaa layna faray markaynu wax gowracayno inaynu si naxariis leh u gowracno oo qofku markuu wax gowracayo kow inuunan midida uu ku gowracayo neefka aanu tusin labo midi bilaa afa inaanu neefkii ku kirkirin balse uu midida soo soofaysto waxaan ku soo gabagabaynayaa bal wiilkan dhallinyartaa u fiirsada iyo wuxuu sameeyey nebigu u yimid calayhi salaatu wassalaam asxaabtii way hareer fadhidaa wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow waa nin dhallinyar ah waxaad ii ogolaataa buu yidhi zinada inaan zinaystaan rabaaye ii ogolow allahu akbar rasuulka calayhi salaatu wassalaam waa fariin wadihii adduunka ilaahay u soo saaray in faaxishada zinada iyo wixii la halmaala adduunka laga tirtiro maadaama oo foolxumo iyo cudur iyo balaayo baas ay wadato iyo nasabko isku darsama laakiin ninka dhallinyarta ihi hawadiisii baa waxay keentay inuu rasuulka weydiisto ku idhaahdo zinada iyo ogolow rasuulku ninkii yaraa ma caayin umana cadhoon balse wuu u caqli celiyey taasina waxay ku tusinaysaa naxariistii nebiga qalbigiisa ka buuxday sala allahu calayh wasalam iyo inuu dadka barayey isaga oo naxariis ku baraya diintana jeclaysiinaya wuxuu ku yidhi dhegaysta wuxuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaad zinaysataad rabtaa atuxibuhu liummika hooyadaa in laga zinaysta ma jeceshahay ma nin baa jecel hooyadii laga zinaysto may buu rasuulka ilaahay ma jeceli wuxuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam afatuxibuhu libnatika inantaada ma u jeceshahay in laga zinaysto may buu yidhi wuxuu yidhi walaashaa in laga zinaysto ma jeceshahay edadaa in laga zinaysto ma jeceshahay habaryartaa in laga zinaysto ma jeceshahay yarkii muxuu yidhi maya ma jecli rasuulku wuxuu yidhi sidaasoo kale un baanay dadkuna u jeclayn in hooyadood laga zinaysto oo gabdhahooga laga zinaysto oo edooyinkood laga zinaysto oo walaalahood laga zinaysto yarkii wuxuu sameeyey u fiirsada intaa wixii ka dambeeyey markuu arkay inuu khalad ku jira yarka yari markuu is arkay ayaa nebigu wuxuu ugu daray sala allahu calayh wasalam inuu gacantiisa laabtiisa uu ka saaro wiilka yar oo uu u duceeyo rasuulku ku yidhaahdo allaahuma kfir dembah ilaahow dembigiisa dhaaf watahhir qalbah qalbigiisana ilaahow daahiri waxasin farjah xubinkiisa tarankaana ilaahow ilaali yarkii yaraa maalintii wixii ka dambaysay lama arag isagoo dumar fiirinaya halkan wuxuu ku gaadhay naxariistii rasuulku u naxariistay sala allahu calayh wasalam maanta haddii lagu odhan lahaa saasoo kale nin sheekh haddii lagu odhan waxaa laga yaabaa inuu ku xanaaqle odhan lahaa mujrim baad tahay dembiilaad tahay bal waxaad ku hadlaysa eeg laa rasuulku wuxuu u yimid dadkan inuu naarta ka badbaadiyo inuu u caqli celiyo inuu naxariista tusiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii naxariistaa ku caanamaala allah inaga dhigo waxaanu ka faa'iidaysanaynaa walaalayaal maadaamoo laydinku yidhi dacwadda iyo diinta ka shaqeeya maadaama laydinku yidhi waxaan ka faa'iidaysanaynaa أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للناس كلهم مسلمهم وكافرهم نبي قلنا حريص بوءها ضدك أردن مسلم كوغا يقالوا دودها حريص بو النبي عليه الصلاة والسلام دقال كي فتح مكة مركو النبي مكة فرطي نمكي مكة كسو عيرية رسولك
wax kasta ku sameeyey waa kii iska saamaxay ku yiri idhabu taga fa antum ad-dulaqa markuu dacwada Taa'ifka iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam reer Taa'if ay nabiga ku direen dadkii waalwaalnaa iyo caruurtii gomadihiisa dhiigu ka yaacay waa kii malaku Jibriil oo malagii buuruhu la socda ku yiri hadaa doonto labadan buurood baan isku keenaysaa sida ay ku halaagsamaan nabigu waa kii diiday sallallahu alayhi wasallam isagoo u baahnaa dadkaas in laga argoosto laakiin muxuu yiri maya waxaan rajaynayaa buu yiri ilaahay inuu dhabaradooda ka soo saaro dad ilaahay caabuda oo aan u shariig yeelin innaga maxaa la inaga rabaa ikhwaani fillah waxa ummadda waajib ku ah inay nabiga ku dayato khaasatan cidda dadka wanaaga faraysa xumaantana ka reebaysa hooyooyinku guriga ha ka bilaabaan caruurtaada si naxariis leh wax ugu sheeg si naxariis leh wax ku bar si naxariis leh wax ugu diid si naxariis leh wax u amar jaarkaaga sidaas oo kale cidii kugu khaldanta suuqa markaad isugu timaadaan naxariistu ha ka muuqato oo ha noqdo suuqaasi suuqii muslimiinta oo kala ah oo xasad aanu jirin oo la isku hagar baxayo oo sidii nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam jir kaliya la isku yahay waxa la rabaa in naftaada aad barta naxariista kii baahanaad aragto naxariis daraadeed aad markaasi gacanta wax ugu taagto waayo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay naxariistiisu gaadhay heer cid alla cidii tiraado wax siiba aanu rasuulku u diidino siya sallallahu alayhi wasallam walaalayaal ilaahay hay naga dhigo kuwa naxariista nabiga ku dayda diinta qiimaha badan leh ee naxariista ina baraysa in la isku hagar baxo ina baraysa in la isku naxariista ina baraysa heer laga gaarsiiyay qofka hadaad xumaan ku aragto inaad asturto man satara musliman satarahu Allah qofka qof muslima astura Allah astura man nafasa an mu'minin kurba نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قف مؤمن دباته ستكفيدا دباتوين كآخر أيو ألا كفيديا هذا إنه نصدع ودقنا ودتك مركن الدين تبرينا قلنا حريصنا ومركن ودتك الدين تأشيعنا قلنا حريصنا أو أينو نحريست أنا جوري كبلونا أو جارك أينو كفافنا أو سوق أينو جينو مستعدين إن شاء الله دمجنا الله نافه عيبهنا الله أستره عملكنا الله وناجيه بلايده أردن الله نجح حجابه فتن كردن الله نجح بدباديه إلهي ضدك محاضرات كسوق بقابية يا ضدك كسوق قيب قال يا أنت من ذنب يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا